dugsiyada al irshaad schools السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي ومعلم أحمد عبد الرحمن محمود أحمد هيلو ويدي دونا مادتي الصومالية يفسر كل حال عشر كيلو مانتا وهو حوي وعشر كي هراء وصيص صعبة منصدي صمدقا أوتري أبوان عبد الله كوليد جاستير وحين هراء وصليني سوى أبوان بقول مامي وحيابك فربنا صمدقا أو كغلح الله سيدا ما صدوا أي نوت مامي سنة wuxuu kaga warramay dhaqanka ay Soomaalidu leedahay ee suuban wuxuu yiraahdo ida sumalka lagu daro riya sararta daaqdiyo loo siidma weydiyo sardadii ku naaxdiyo sangabeerta lagu qodo barqab geel la soofo sanadkii marqooqo tiro 3 bilood ahna socod iyo wareegiyo xumba sayrin mooye geed uu sare u laaciyo biyaha ka soomo suuqmay oo hadana kurus sigibtiran ku yaaliyo hayin biyo masayd shoo maqal sabad ka daaqdiyo weyda socon weydiyo lagu dhaansho sabigiyo hilibka iyo saantiyo subaga iyo caanaha saddexda iigu deeqdee mar aan saylad geeyiyo kol soof ilaa shaba saatil bow ku mahadlee xoolahan sidka u helay tilmaan la iigu soociyo hidda soo jireeniyo sumad weeye dhaqanoo inta iyo siyaadaba Soomaali bay iska leh abwaanku waxa uu tilmaamayaa oo uu inoo sharaxayaa sida xooluhu qiimaha ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed halka ay kaga jiraan waxtarkooda iyo manfaacooda wuxuu abwaanku soo qaatay qaybtan labaad inteeda hore ee maasada in ay idaha oo sumalka lagu daro iyo riyaha oo la daaqsiyo sinta buuraha sararka daaqiyo looda seedma weydiyo iyo looda ido iyo riyo iyo lo saddexdaasiba ay manfac dheer u leeyihiin iyo manfac badanba dadka Soomaaliyeed waxa uu kaloo ku tilmaamay abwaanku daaqiyada ay xooluhu daaqaan xilliga gugi oo mid ka mid ah magacyadii noo soo qaatay sirdi ku naaxdiyo singa beerta lagu qodo iyo dibidii beerta lagu qodayba ay leedahay marka xooluhu waxay noo haysanaa weli marayba ay xoogooda manfac la soo baxnaa oo beertii ku qodnaa taabahan xoogooda ku qodnaa dhulka markaasay midhuhu ay ku daadinayaan dhulka markaasay soo baxdaa sidoo kale waxa aynu xoolaha ka helnaa weli taran qaarkood sida baarqabka oo geela lagu daro oo soofma wuxuu yiri baarqab geela la soofo sanadkii marqooqo tiro 3 bilood ahna socod iyo wareegiyo xumba sayrin mooye geed uu sare u laaciyo biyaha ka soomo suuqmay oo hadana kurus sigibtiran ku yaaliyo hayin biyo madaadshiyo wuxuu yiri hayinka wuxuu laalay guri dabeecadahaas ayuu bixiyo oo markuu qooqo wuxuu yiri 3 bilood waxba ma cuno biyo ma cabo Saudi wareegna uu ku jiraa isagoo isku diyaarinay inuu tarmo oo astaan muujinayo oo awrta kale kaga duwanaado xumbada uu sayrinayo iyo dhibida iyo maxaan ku raahday uu isku shubayo waxay macnaheedu u taagantahay astaan uu bixinayo oo uu leeyahay waan qooqanay hal ay ogaado isla markaasna uu taran isku diyaarinayo inuu tarmo geed uu sare u laaciyo geed uu sare u daaqo biyaha ka soomo biyaha baan cabin suuqmay oo hadana kurus dhuubtay oo gutay oo hadana kurus ku yaala sigibtiran ku yaaliyo kurus toosan oo adag ku yaalo oo kuruskiisa ki weyna aanu ka dhigin hayin biyo masaydisho iyo awr degan oo loo haysto isaga in lagu guuro xoolahana la saaro wixii jiraysan dadkana la saaro kolka geediga la guurayo safar lagu buuxo biyahana la dhaansado laguna guuro kolka deegaan ahaan meel kale loo daldoorsanayo maqal sabadka daaqdiyo waxaan leeyahay buuro waxara yar oo daaqa buuli guriga agtiisa maqal sabadka daaqdiyo weyda socon weydiyo loogu dhaansho sabigiyo caruurta yar
ayaa awkii hayinka ahaa ibiyo madaadshaha aynu soo eegnay inuu isaga gaadiid ahaan u haysanay ayaa maxaan ku dhahdaa aynu haysan aynu saarnaa buuti hilibka iyo saantiyo iyo saantiisa subaga iyo caad saddexdaa iigu deeqdee ilaahay baa iga siiyey xoolahayga inaan saddexdaa ka helo buuli mar aan saylo geeyo mar aan xoolaha iib geeyo buuli kolaan soof ilaashaba iyo kolaan aan wax kale kusoo bedesho saatir baa igu mahadle ilaahay baa ku mahadsan buuli oo mahadab kule isiiyey xoolahaas aan kolbaa wixii aan doono u adeegsanayo xoolahan sidka u helay xoolahan qaybta u helay haddaan Soomaali nahay ilaahay baa na siiyey buuli waan kaga duwanaanay aadamaha intiisa kale tilmaan la igu soociyo waa tilmaan la igu garta buuli haddaan nahay dad Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed haddaan nahay waa tilmaan aan dadyoga kale adduunka ku nool kaga duwanahay halka dadka kale adduunka ku nool qaarkood ay u leeyihiin warshado qaar baabuuraha soo sameeyaan qaar beeraha ay wax ka soo saaraan ay wax kala soo baxaan qaar warshadaha qaar qalabyada dhismayaasha anagu haddaan Soomaali nahay waxaan soo saarnaa oo ilaahay na siiyey inaan dhaqasho xoolaad dadka kale kaga duwanaana noolahay waa hidda soo jiray buuri hiddaan u leenahay inaan xoolaha dhaqano sumad weeye dhaqano waa dhaqan baan u leenahay sumadaas intaa iyo siyaadaba intaa iyo wax ka badanba waxa iska leh Soomaali baa iska jecel saddex qeyd haddaba qaybtan wuxuu kaga warramayaa dharkii hidaha iyo dhaqanka ahaa ee Soomaalidu ka soo dhaxleen awoowayaashoodii hore iyo Soomaalidii hore ee tagtay ay ka soo dhaxleen ee jiilba jiilka dambe loo baahan yahay inuu gudbiyo ayuu ku tilmaamaya marihii la xidhan jiray iyo qaab iyo nooc ay ahaayeen wuxuu yiri waxaan xidhan jirnay saddex qeyd shuban iyo saddex qeyd qurux badan oo naleeg dhixir sooran maradiyo iyo mara aan dhexda ku xidhano oo naleeg si dariga iyo dhaayaha quruxdana soo jiita bilicna leh dhacal saaqa iyo boqor qalab aan xidhano iyo qalab kale dhexda ku xidhano oo iyaguna boqorka iyo dhacaluhu ayaan qalab mariyaha labisan ugu xidho sida suunka oo kale ah jaray iyo sinjeed iyo waa qalab dumarku ay xidhan jireen iyaguna xarraga ahaan oo gacmaha ay gashan jireen laasim wuduuda iyo kuwii dhagaha laga loo jiray qool sida shawacno iyo qool dunaabi ah oo qoorta la gashado oo midabkeeduna casaan yahay oo soo jiidasho iyo qurux fara badan leh soo jiita aadliga buuri dahabinaadana markaan xidhanayo la yiraahdo alla inantaasi way xaragoonaysaa waa tuma ama ishana la raaco oo soo jiidashada waayo sida ay bilicda indhuhu u soo jiitaan baa dharkana midabadiisa ay indhaha aadamuhu kala eegmo u kala rooyeen xagga eegmada oo marana way soo jiidataa inaad sii eegto sii daawato midna markay indhuhu aad ku qabatay ka duulayaan oo ma eegaysid waayahay saddex magac leh iyo gabadhaas oo loo xidhaayo oo ah gabadh qiimo badan leh oo nin saddex wanaagsan dhalay samin iyo isluub loo iyaduna u dhalatay xishood iyo idhaab geeyaankeed la siiyo iyo gabadhaas oo la siiyey cidii guurka ku fidnay inay guursataan oo ay ahayd cidii ay isguursan jireen iyo qaar hore ay iska guursadeen sama lagu arooso wanaag baa lagu aroosay inantaas oo laba reerka inanta ay ka dhalatay inanta waxay soo raacayaan xoolo inanku markuu guursadana aabihii wuxuu siiyaa xoolahaas ay helayaan waxa weeye way bagacyo ay leeyihiin iyo barba la yiraahdaa inanka xoolaha la raacinayo inantana waxa la yiraahdaa dhibaat inantii waa ma la yiraahdaa diiqo meerka qaarkood ee deegaamada qaarkood waxa loo yaqaanaa diiqo sama lagu arooso wanaag lagu aroosay inantaas hidda soo jirana weeye inay saas dhacdo buuri waa hidde aan ku sumad weeye dhaqano waa sumad aan dhaqano leenahay haddaan Soomaali nahay inta iyo siyaadaba intaas iyo in ka badanna waanu leenahay oo ka wanaagsan waxaana iska leh Soomaali bay iska leh waxaana iska leh dhaqanka wanaagsan ee soo qeexnay ee la siin ee guurka ah ee xoolo dhaqashada Soomaalida eriyadan macnahooda waxa weeye masalaha macnihiisu waxa weeye salliga lagu tukado ama sijaayada sardi waa mid ka mid ah doolka xoolaha cunaan gugi ee cagaarka ah suuqmay waa awkii midtren waa gotay oo dhuubtay qoob darteed ama taran darteed
sigibtiran macnaheedu waa toosan sigibtiran macnaheedu waa toosan dhacle waa xidhasho mariyo sinjiyad waa qalab ay dumarku isku qurxiyaan si ay baahiyahooda iyo maxaan ku dhahday labiskoodu u dhamaystirmo laasim waa qalab ay dumarku xidhaan xaraga ahaan oo ay ku darsadaan maryahay xidhaan kusii dul darsadaan arday aad iyo aad ugu mahadsantiin casharkii sida fiicnayd ee qiimaha badan ee aad fahanteen ila socoteen waxaad ka soo shaqeynaysan layligan si aad ugu dabaqdaan fahankiinu inuu fahanteen iyo in kale isugu tijaabisaan hadii jeer layliyadu waxay ka turjumayaan casharkii inaad fahanteen iyo in kale qaar baa ardayda u haysta layliga in loogu soo dhigo wax iyaga lagu dhibaayo laakiin ma arrin sidaas waa tijaabo maskaxdaada kaliya iyo mar lagu joogaba aad ku samaynayso si aad soo ogaato bal inaad wixii hayso iyo inaad wixii dub ugu yar noqoto oo aad mar labaad iyo mar saddexaadba ay kaga baahan tahay inaad soo akhrido dugsiyada al irshaad school